iyadoo ay maalmo kooban ka harsan yihiin tukashada salaada Ciidul Fidriga ayaa shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay ku jiraan u diyaar garow xoogan ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadaasi Ciidul Fidriga awgeed suuqyada magaalada Hargeysa ayaa ah kuwa camiran isla markaana ay soo buux dhaafsheen dadweynaha kala duwan ee iyagu ku mashquulsan iibsiga dharka ay ciida ku iidi lahaayeen oo ay ka iibinayaan goobaha dharka lagu iibiyo ee bacadlayaasha loo yaqaan ama goobaha dharka lagu gado waxaana indhahaagu qabanayaan hooyooyin badan iyo aabayaal ciyaalkooda gacmaha ku wada daadihinaya muujinayana dareenka farxadeed ee caruurtooda la qabaan qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibiya ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay soo kordhiyeen iyo waxa ciidani kaga duwan tahay ciidihii hore waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan mulkiilaha meherada ku dhex jirtaa baanay bishana waa bil barakaysan iibku si wanaagsan oo aad oo xawliyo oo wanaagsan si loogu talagalay ayuu socdaa ilaahay fadligiisa waxa weeye xooluhuna way ka soo horeeyeen intii hore oo tawaanigan ka guurnay Yamantana waa taday magaranaysa ay dagaalada ka jiraan dibna imika laga guuray wax loo guuray China iyo Turkiga loo guuray marka xilligii loogu talagalay xoolaha iman jireen way ka soo qadimayaan damaashu waa taraago masaafo dheer marka Ramadaan horaanteedii la shibcaan bay xooluhu socdeen dadkeena way kobo si ilbaxayaan dadna xoolihii dadku si wanaagsan anaguna soo dhaweeyay inuu iibsanayaan marka iidkani iidkii ka horeeyay maxaad ku tilmaami kartaa inuu kaga duwan yahay kaga duwan yahay dadkii xoolo jaban helay aad iyo aad waxa go'day wixii magaranaysa anaguna jaban ku helay dadka ciidani waxay kaga duwan tahay ciidii hore waxa weeyaan waa ciid happy oo dadku si wanaagsan u iibsanayaan jaam saas maaha dadku waxa weeyaan waxay si naasila oo wanaagsan oo dabeecad iyo akhlaaq leh u iibsanayaan suuqna sidii hore uu ka fiican yahay ma sha Allah alxamdulillah ku jirnaa kama heeradahan idinku maxaa ku soo kordhiseen kaga duwantiin sanadkan waxaan anagu ku soo kordhinay waxaan u badan qaybta ragga dhammaan waxaan keenay jimsidii saraawiishii Turkiga ah garamaantii suularkii dhammaan waxaan keenay dharkii ay dhalinyartu u baahnay kullay ciidan waxa ka dhiman dhowr sho kaliya si fiican ayaan ugu diyaar garoonay dadweynahana way ka muuqataa oo wadiga arka suuqyada sida loogu diyaar garoobay annaga meheradeedan wax la bilicsan superstar alaabaha ay keentayna waa kuwa yaala adu si aad iyo aad baan ugu diyaar garoonay ciidan maxaad tilmaami kartaa inay kaga duwan tahay ciidii hore ciidan kullay ciidihii hore wad soo ogtaayo annaga hadaan nahay bacadlihii ama wixii dadweynaha wax ka iibinayay ciidihii tan tii ka horeysay iyo tii kale ka horeysayba dadweynuhu waxay soo galeen habeenkii u dambeysay oo habeenkii u dambeysay buu saxmadda suuqa sidan oo kala noqotay laakiin imaka laga bilaabo adigu markay 5 ka harsanaayeen caawi 3 ka harsanayeen ilaa markay 7 ka harsanaayeen dadweynuhu aad bay soo galayeen amnigana aad bay loo adkeeyo mar kastoo dadweynuhu xoog suuqa soo galaan amnigana waa la sii adkeynaya marka wallahi ciidani waxay ciidihii hore ciid aad iyo aad uga faa'iido badan baan anagu aragnaa wallahi walaal ciidkani wuxuu ka duwan yahay ciidkii hore waa san imka soo abaabulida bulshada soo abaabushay sidoo soo abaabuli jireen imka 100% dhalinyaradii dumarkii hadii ay bidankada leeyahay aan xitaa ma garanaysaa samarka oo si sakada yimayn ugu cusub ayaa xitaa suuqa ku soo kordhay oo wax iibsanaya qaar waxay soo dejinayaan marka si ma garanaysaa idii hore ka duwan oo ka xadaarad duwan oo ka firfircoon bal xoolii aan iibin jirnay xitaa sanadkan oo ka duwan yihiin oo xoolo jaban oo quruxdooda teeyaad yaabayso ayaa suuqii la keenay ma sha Allah ilaahay ku jira alxamdulillah rabbil caalamiin hadii ilaahay bidankada leeyahay wax leeyahay iideeyda wax u gaari doonaa bash iyo barwaaqo geesta kale dhalinyarta iyo dadweynaha iibsanaya dharka ciida ayaa waxay ka xog warrameen dareenkooda iyo siday u arkaan dharkani ay iibsanayaan waxaan ku sidnaa garanaysaa shaari surwal waxaan doonayaa inaan ku iibsado iidii si aan ugu tagi lahaa salaada ama ku xarago la iidkan iyo dharkan aad iibsanayso dareenkaaga qaabkiyo saxmed dareenkaaga aad iyo aad u fiican runtii dharkana waa dhar quality qiimo jaban leh si fiican loo soo dhaweeyay meheradana macaamiil baan nahay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inta badan marka bisha Ramadaan soo gasho ayaa waxa suuqa lagu arkaa dhalinyaro fara badan oo kooxo u socda isla markaana ujeedkoodu yahay inay suuqa soo xaraabo doontaan oo dadka dhibaan ilaalada ciidamada bilayska Soomaaliland iyo ciidamada gurmadka degdega ee loo yaqaan damdamiska ayaa heegan xoogan ugu jira sidii amniga taasina waxay muujinaysaa sida nabadda heeganka loogu yahay maadaama Soomaaliland ku soo caanamashay nabadda waxyaabaha lagu daneeyana ay koow ka tahay nabaddu waxaana buuqa suuqyada magaalada Hargeysa Maxamed Farax Bile telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Hargeysa